الليله هلا ابو مقدا يا ودق لسيدا وباها الليله هلا ابو مقدا نلا العقوبة عارنا الليله هلا ابو مقدا يا ودق لسيدا وباها الليله هلا ابو مقدا عيدي دانتنا لا باب لي لما داني لوروري عيدي دانتنا لا باب لي لما داني لوروري شقار أردي الليله هلا ابو مقدا وضع حرمسا شقار أردي الليله هلا ابو مقدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين بددكنا dhageystow ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan diiradda ku saari doono horumarka iyo shaqada ballaaran ee ka soconaysa cisbitaalka guud ee gobolka Mudug sida dadka oo dhami la wada socdo cisbitaalka guud ee gobolka waxaa tan iyo markii la magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda caafimaadka iyo howlwadeennada la shaqeynaya uu isbedel ku yimid dhammaan howlaha shaqo ee cisbitaalka guud ee gobolka Mudug cisbitaalku horay waxa uu ka mid ahaa goobaha caafimaad ee aadka u dayacan mana ka socon wax shaqo caafimaad lagu tilmaami karo waxaana markii maamulka cusub ee cisbitaalka loo magacaabay gebi ahaanba isbedel laga dareemay cisbitaalka maamulkiisa shaqadiisa iyo bilicdiisa barihii u dambeeyay waxaa ka muuqatay dayactir lagu sameynayay qaybo ka mid ah cisbitaalka sida qaybta jajabka hoolka shirarka wajhada hore ama albaabka hore ee laga galo cisbitaalka iyo hareerihiisaba waxaana markii ay soo baxeen warar sheegaya in dhakhaatiir cusub oo ajaaniba ka imaanaysa dalka Turkiga ay dadweynaha magaalada Gaalkacyo bilaabeen inay buux dhaafiyaan cisbitaalka si ay uga mid noqdaan dadka la kulma dhakhaatiirtan cusub ee ka imaanaya dalka Turkiga 23 Oktoobar oo maalin si weyn magaalada Gaalkacyo loogu soo dhaweeyay dhakhaatiirka Turkishka ee ka howlgalaya cisbitaalka guud ee gobolka Mudug laga dareemayay cisbitaalka in ay soo buux dhaafiyeen dadweyne doonayay in ay la kulmaan dhakhaatiirtan cusub ee Turkishka si ay ugu bandhigaan xanuunada kala duwan ay ka cabanayaan dhakhaatiirtan ayaa isugu jiray kuwa qaybo kala duwan qaabilsan waxaana ka mid ah dhakhaatiirta ilkaha indhaha jajabka lafaha iyo qaliimada guud maalintaasi kadib isbitaalka iridiisa iyo hareerihiisa waxaa soo buux dhaafinayay dadweyne kala duwan kuwaas oo wada eheladooda iyo qaraabadooda oo ay doonayaan inay qaabilaan dhakhaatiirtan cusub ee howlaha caafimaad ka wada cisbitaalka guud ee gobolka Mudug waa cisbitaalka gudihiisa dhooban dad aad u fara badan waxaana jooga shaqaale fara badan oo wasaaradda caafimaadka ka tirsan oo ka yimid gobolada kale howlaha cisbitaalka ka soconaya waa kuwii ugu horeeyay aan ku arkay cisbitaalka guud tan iyo markii aan booqday maalinnimadii shalayto oo maalintii labaad ay ka soconayaan howlaha caafimaadka cisbitaalka guud ee gobolka Mudug dhakhaatiir kala duwan oo halkaas aan kala kulma ayaa sheegay in maalin walba ay qaabilaan dad gaaraya 60 ilaa 70 ruux kuwaas oo ka cabanaya xanuuno kala duwan waxaana dhakhtar walba oo ka mid ah 18 dhakhtar uu qaabilaa in ka badan 60 ruux oo doonaya in howlo caafimaad ama gargaar caafimaad loo fuliyo halkani waa hoolka jajabka waxaa ku jira dhakhaatiir Soomaali iyo ajaaniba kuwaas oo howlo caafimaad u fulinaya dadweyne kala duwan kuwaas oo doonaya in howlo caafimaad loo qabto banaanka hore ee hoolka waxaa dhooban dadweyne aad u fara badan sidoo kale waxa ay rabaan dadkan inay la kulmaan dhakhaatiirta Dr. Timire waxa uu la shaqeynayaa dhakhtarka jajabka waxaa jooga sidoo kale bukaano iyo dhakhaatiir ajaaniba
دكتور waxaad ka mid tahay dhakhaatiirtii la shaqeynayay qaybtan jajabka aan filayaa inay tahay hawlaha aad maanta qabateen dadka idin soo booqday iyo bal sharaxaad kooban naga sii دكتور محمد حسين ديري دكتور تيمر waxaan dhakhtarka la shaqeynaa dhakhtarka jajabka muxuu dhakhaatiirtu ilaa hadda waxay shaqeynayaan muddo 2 maalmood shaqo adag ayay ka qabteen isbitaalka guud ee gobolka Mudug dhakhtarkan wuxuu qaabilsan yahay xagga jajabka ilaa iyo hadda shalay iyo maanta waxaan visiteynay bukaan ilaa 68 bukaan maanta oo kale jajabka aad qabateen ma gacmaha lugaha bal xogaa noo sharax muxuu ahaa bukaanku wuxuu isugu jiraa lugaha gacmaha iyo bukaan kale maartay xanuuno lafaha qaba iyo waxa dad la kabay oo operation lagu sameeyay ma jiraan ilaa iyo hadda waxaan qabanay ilaa iyo 3 operation baan saaka galnay 7 ka midna haddaan inaan galnay ilaa maghribka ku gaarnaan rabnaa hadii la yiraahdo sidoo kale waxaa dhaktar Timire garabkiisa fadhiya dhakhtar Turkisha oo qaabilsan jajabka kaasi oo hawlo caafimaad u fulinaya boqolaal Soomaaliya waxaana dhakhtarkan aan su'aalo ka weydiiyay hawlaha caafimaad ee ka soconaya isbitaalka guud ee gobolka Mudug iyo waliba sida uu arka dareenkiisa doctorka waxaan weydiinayaa ma jiraan qalliimadan oo kale meel ka baxsan Soomaaliya oo aad ka fuliseen cudurrada dadkan ay qabaan jajabkaas maxaa ugu badan Yes, you can talk it. You say the question is there. Is there any mission you like this you did another country or not? The Association of Doctors of Hope has been previously in Ethiopia and in Afghanistan. This is the third in Somalia, and we are planning to do some more missions in different countries and also in Somalia as well. wuxuu yiri muxuu ahaa waa sax waa hadda ka hor meelaha aan ka fulino waa jira dalalkan ka fulino waxa ka mara Ethiopia, Afghanistan iyo Soomaaliya markii saddexaad waxaan jecelnahay inaan Soomaaliyana sidaas kale uga fulino ma jiraan bukaanada aad qaabisheen dad Soomaaliya gudaheeda aan waxba looga qaban karin dareenkaadu sidee weeye dadkan Soomaalida ee aad wax u qabanaysaan sidee ugu faraxsan tahay You say, is there any patient you are suggesting to transfer an abroad country you cannot treat here? Yeah, that's the question. Okay. We have been doing a polyclinic work since 2 days, and we have seen a lot of patients who cannot be treated right now under these circumstances. So we have advised several patients to be treated abroad, outside Somalia. wuxuu yiri dhakhtarku sax weeye horta maalmahan waxaan sameeynay bukaanno kala gedisan oo cudurro badan leh marka muxuu ahaa bukaanadaas qaarkood waxaan maaragtay muxuu ahaa ku talinay in dibadda lagu soo daaweeyo aan ku talinay weeye marka waa sax waaye bukaanno oo maaragtay aan ku talinay in dibadda lagu soo daaweeyo ayaa maaragtay jira okay and also we have planned some surgeries for our second visit, where we'll provide some more instruments and some more equipments. For this first visit, it's more important for us to see what we have in our hands and what we have in our hospital. And for the second visit, we're planning to bring some more instruments and do more surgeries. Okay, sidaan horeba idinku sheegay markaan qaybtan hore oo aan nimid aad bay maaragtay muhiim noogu tahay sababtoo ah waxaan rabnaa inaan ogaano bukaanada maaragtay halkan wax loogu qaban karayo kuwa aan wax loogu qaban karin sidaa darteed bukaanada aan ku talinay in dibadda lagu soo daaweeyo way jiraan waana ku soo talagalaynaa markaan laakiin tan waxa weeye inaan ogaano xaaladaha iyo bukaanku soo kala how you look as a doing your job here in Somalia, how you look feeling? Okay. The Somalian people are our brothers and sisters, and they are a Muslim community like us. So I'm very happy to be here. I'm very happy to be of help. But